magacaaga ayaa ka turjumaya dabeecadahaaga iyo qofka aad tahay. aynu ku bilownay xarafka ee qofka uu magaciisa ugu horeeyo. xarafka ee waa xaraf astaan u ah caqli, waxaa lagu yaqaanaa dhiirani iyo adayg badan marka uu rabo inuu socodsiiyo aragti isagu uu qabo. qof haddii uu hogaamiye noqdo dunidoo dhan jecel inuu tuso jiritaankiisa iyo awooddiisa, waxa uu leeyahay afkaar wanaagsan iyo aragti qiimo leh. waxaa lagu yaqaanaa himilo iyo doonis heer sare ah iyo xamaasad. waxa uu jecel yahay shaqada iyo dhaqdhaqaaqa, waxaanu neceb yahay xasiloonida iyo fadhiga. haddii uu xarafkani mar labaad soo noqdo magaca dhexdiisa, waxa uu tilmaamayaa hogaamiye geesi ah. haddii uu mar labaad ku soo noqdo dhammaadka magacana, waxa uu tusayaa in qofkani uu yahay qof talada iyo waanada aan qaadan, qof aan jeclayn xataa in hadalka uu wado laga dhex galo. xarafka B. xarafkani waa astaanta caadifada iyo xamaasadda, waa astaanta khajilaadda. waxaa lagu yaqaanaa feejignaan iyo dareen dheeraad ah. waxaanuu jecel yahay quruxda iyo fanka, laakiin badanaaba keligii ma socdo haddaanu cid kale ka haysan dhiiranaan. haddii magacani uu ku bilowdo xarafka ee, waxaa lagu yaqaanaa qof jecel iskaashiga inuu dadka wax la qabsado. xarafka C. qofka magaciisu ka bilaabmo xarafka C waxa uu caan ku yahay faanka. waxa uu aad u yaqaanaa sida uu naftiisa uga warramo una cabiro. waxa uu jecel yahay inuu soo jiito dareenka dadka, waxaanuu ku dadaalaa inuu qudhiisu dareenkiisa siiyo dadka kale. laakiin qofkani waa qof mar kasta kacsan oo aanu qalbigiisu degganayn, waana qof boodsan, waxaanu u baahan yahay jacayl dejiya. haddii uu xarafkani ku soo noqdo magaca dhexdiisa, waxay astaan ku tahay in qofkani yahay qof maskax furan oo wax cusub dhalin kara amaba se curin kara. xarafka D. xarafkani waxa uu astaan u yahay howlkarnimo iyo dadaal, waxaanu aad ugu halgamaa sidii uu dhabayn lahaa himilo iyo ujeeddo uu leeyahay. fikirkiisa iyo aragtidiisa ayuu aad ugu dheggan yahay, iyadoo ay gaadho mararka qaar inuu u aamino fikirkiisa sida caqiidada. xarafka E. xarafkani waxa uu astaan iyo dhiirigelinba u yahay la qabsi, inuu qofku la qabsado mar walba xaaladda iyo duruufaha taagan, iyo inuu dadka la qabsadaba. waxaa lagu yaqaanaa in aanu adkaysan, inta badanna laga dareemo kacsanaan iyo dawaq, gaar ahaan xaaladaha jacaylka iyo safarka. marka lagu jiro, waa qof karti iyo awood u leh inuu xidhiidh la sameeyo dad badan iyo dhinacyo badan oo ku xeeran. waa qof firfircoon oo aad dadka uga dhex muuqda. haddii xarafkani uu ku soo noqdo magaca dhexdiisa, waxa uu astaan u yahay qof mar walba si degdeg ah u jawaaba, waxaana lagu yaqaanaa boodbood iyo inuu ku adkaysan waayo go'aanadiisa. daawadayaal, intaasi waxaa ku eg qormadan aan idinku soo gudbinaynay magaca qofka xarafkiisa ugu horeeya iyo waxyaabaha uu tilmaamaya qaybta koowaad. waxaa idiin soo diyaariyey Kamaal Axmed Cali, waxaana idinla socodsiinaya anigoo taajir warbahda Geeska Afrika oo idin leh nabadgelyo.